السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك وايد السلامي ميل بعدو كجكتا ولا شيء نجم MBR هالك دقة دامن السنة ونجم MBR channel سودو وقع مفرق قلب فرنيسة فئة هذا هو إلى شوكتي سودو هذا يقول عصبت هنا هلا بينا فيديو كسبسكرايب كسرت channel كسبسكرايب كسرت فيديو جنا لايك ريست سي ام ار تي أصحاب بدن وقاران سودو هذا قع مفرق قلب فرنيسة فئة مر لواد مرسد حاد مرشرات فيديو أصوري جوها يقدم بيسي labaatan beri ka hore mashquul dartiis caawa video ayaa soo dhigay insha allah ha iloobin ina like reset si maartay oo asxaabteeda kale u gaaro caawa waxaa ka hadlaynaa waxay tahay maxaa keeno labadii qof oo isjecel arrimaha ugu weyn ee qalbiyadooda kala fogeeyo ama inay kala niyajabaan waxyaabaha ugu weyn ee keeni karo inay labada qof isla nool isjecel qalbiyadooda inay kala jabaan maxaa keeni karo sababo badan ayaa keeni karto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo sababo aad iyo aad muhiim u ah haddaad xaaskaada rajo ka leedahay haddaad ninkaagu rajo ka leedahay saddexdan calaamadood iska sax saddexdan calaamadood waxay keenayaan jacaylkii inuu daciif noqdo kalsoonidii inay daciif noqoto guryo badan maanta soomaalida waxay ku dhisan yihiin jacaylaan bay dhisan yihiin guryo badan Soomaaliyeed maanta waxay ku dhisan yihiin jacayl la'aan bay ku dhisan yihiin saddex qodob oo aad iyo aad muhiim u ah oo keento inay labada qof kala qalbi jabaan kala niyad jabaan ayaan rabaa inaan halkan idinkula sheer gareeyo saddexdaas qodob waa ina aad iyo aad uga fiirsatid aad iyo aad uga iskaga ilaalisid haddaad lamaanahaaga rajo aad ka leedahay saddexdaa qodob hadday idin soo dhexgalaan qalbi jab iyo kala fogaansho ayaa idin imaanaa iyo inuu jacaylkii daciif noqdo qodobka u koowaad marka u horeysa horta labada qof oo isla nool waa isku dhacayaan waa la isku dhacayaa adaa wax taban kartid qofka kale wax taban karo waa la isku dhici karaa shaydaan baa jiro bini aadana maartay si qaldan wax kugu sheegi karo somehow waa la isku dhacayaa sidii la iskugu dhacaba no matter what marka la isku dhaco waxaa loo baahan yahay inaad iska ilaalisaan saddexdan qodob waxay keenaan in la kala qalbi jabo gabadha markay ninkeeda ka qalbi jabto ama uu qalbigeeda uu ninkeeda ay ka niyad jabto calaamadaha lagu arko video kale kaga hadli doonaa ninka markuu xaaskiisa ka qalbi jabo ama uu ka niyad jabo calaamadaha lagu arko iyo qaababka lagu garan karo video kale kaga hadli doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo aad iyo aad muhiim u ah saddexda qodob waxaa waay qodobka u horeeyo markaad isku dhacdaan ama aad isqabsataan isku daya inayna guriga lagu kala bixin especially ninka gabadhana inaysan arrintaasi iyada ah inaysan ka dhigin arrin waa la isku xanaaqi karaa waa la xanaaqi karaa waa la carooni karaa laakiin gabadhaas caradeeda inaysan noqonin caro gaarto ilaa iyo odayaal ilaa iyo reer ay gaarto ninkana caradiisa yaysan gaarin inuu irdaas ka baxo baagiisa qaato waa qodobka u koowaad caro inaad carootid darteed caradii ay ka tanbadiso gabaryahay ha gaarsanin ilaa iyo odayaal ilaa iyo reer ilaa iyo aad maartay dad kale ay dhexdiina soo galaan adigana wiil yahow carada hayay ku gaarsanin inaad guriga ka baxdid oo dharkaaga aa qaadatid carada markay meesha gaarto haddaad si kasta u heshiisaan waxaa imaanaya qalbi jab si walba aad u heshiisaan shalay sida aad ahaydeen iskuma noqonaysaan waa qodobka koowaad qodobka labaad markaad isku dhacdaan ood carootaan caradiina isan 2 beri ilaa 3 beri yaysan gaarin isku daya qofka markaas qaldan inuu qaladkiisa qaato isla markaas isla habeenkaas in la heshiiyo carow qayli buuq wax kasta laakiin make sure inaad soo degtaan oo heshiisaan qodobka saddexaad ee aadka asagana muhiimka u ah waxaa waaye in lagu kala guurin qolka jiifka example qofka haday qofka dumarka xanaaqdo
ama qofkan kale uu xanaaqo uu imaado qolkii jiifka uu kasoo guuro qofka kale yuusan ka ogolaanin inuu qofkaasi habeenkaasi banaanka ka seexdo. waxyaabo waxaa jirtaa haddii lala qabsado dadka qalbiyadooda kala fogeynayso. 3 qodob waa 3 qodob oo aad iyo aad u weyn oo tiirka guriga ah. yaanan qolka lagu kala guurin, carada wiilkaysan gaarsiinin inuu dharkiisa qaato uu guriga ka baxo. gabadha aasaa ku suubiso way kaa qalbi jabtay, si qalbigeeda usoo noqdana is very hard. uma malaynaya inay qalbigeeda soo noqonayo. sidoo kale gabadha arinteeda intay buubuuniso ilaa iyo odayaal iyo adduun gaarsiiso waxaanan markaas iyada ah dhibaato weyn aan meesha yaalin ee u baahneen inayba qoys iyo arrimo soo dhexgalaan. gabadha gaarsiisoo kale iyadana waxay noqonaysaa meeshaas iyada ah inuu lamaanahaagii kaa qalbi jabo ama ay noqoto privacygeeni aad banaanka u bixisaan. waxaa imaanayo qalbi jab. markii la isku dhaco 3 qodob ha la iska ilaaliyo yaan heerkaasi la isla gaarin. midda kale aadka muhiimka wiilasha ugu waxaabaye inaysan ku degdegin furiinka. mar hadduu furiin dhaco si walba aad iskugu soo noqotaan sidii hore ma noqonaysaan. so marka 3 qodob waa very important. waxaan jeclaystay inaan idinla sheergareeyo 3 qodob buug iyo qalin ku qoro, si walbooda carootid 3 qodob iska ilaaliya si uusan jacaylkiina dhexdiina uusan maaragtay u yeelanin dulduleela ama uusan u daciifin. mar walba jacaylka waa muhiim inuu guriga jacayl ku taagnaado. ixtiraam kala dambeyn waa muhiim. waxay 3 shay jacaylka ayay nusqaamiyaan. aad iyo aad uga fiirsada insha Allah. haddaad videoga ka heshay make sure inaad like garaysid, asxaabtaada la sii share garaysid. aad iyo aad ku salaamaya. soo dhawaada